hadlo runtii dareenkeena lama qiyaasi karo waxaan rabaa anoo fursaddan ka faa'iidaysanaya ugu horrayn inaan u mahadceliyo qaybihii kala duwanaa ee soo agaasimay ciyaartan ahmiyaddeeda leh oo ay ugu horreeyaan golaha barbaarka aragga ururka Today iyo isbitaalka Muqdisho nasiya iyo guud ahaan qof kasta oo gacan ka geystay waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan jeclahay dareenkayga inaan ku biiriyo maalintan maalin farxadeed golaha barbaartu waxay soo wadeen muddo dheer arrintan tartanka laakiin maanta waa lala qaban qaabiyey maanta garab bay heleen isboortigu sidaan ognahay wuxuu ka qayb qaataa isfahamka wada shaqaynta iyo nadwowga ama isku xirka bulshada marka waxaan leeyahay arrintan waxay aasaas u tahay in bulshada Soomaaliyeed ay isku xiranto ay wax wada qabsato sidoo kale waxay ifaalo wanaagsan u tahay dadka naafada gaar ahaan qaybta dhinaca indhaha aragga ku qaba naafada ka ah inay u furayso mustaqbal wanaagsan oo ay tusayso asaagoodu inay dheeli karaan inay wax qabsan karaan inay ummadooda kala tartami karaan runtii fariin ayay u tahay sidaas si la mida waxay deeli wanaagsan ka tahay in mustaqbalka dadka araggala ay tartamada waaweyn ee adduunka lagu qabanayo ay ka qayb galaan guud ahaan marka waxaan leeyahay qof kasta oo arrintan ka soo gacan geystay aad iyo aad u mahadsantihiin si gaara golaha barbaarka araggala waxaan leeyahay hambalyo runtii waxaad ku tallaabsateen arrin aad u wanaagsan haddii dareenkiina intan gaarsiiseen qaybo kale oo idin garab istaaga maanta si jamaaci arrintii loo qabanaayo goobtan quruxda badan ee wanaagsan lagu qabanayo aad iyo aad ayaan idinku hambalyaynaynaa beesha muxuu ahaa naafadaana waxaan leenahay guud ahaan hambalyo dadka Soomaaliyeed guud ahaan waxaan leenahay hambalyo waxaan rajaynaynaa sanadkiisa kalena goobtan goob kasii wanaagsan iyo mid ka ballaaran iyo idinku adduunka gaaray inaad arko guulaysta aad u mahadsantihiin